وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حندور كان هبين اسكحيا صوتي كورميني الدنيا ذا يقيمها يكون هذا الشريعة الإسلامية أكتيدة يسد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والرب يا صحابتي عاونا وحين تلمامي دونا ونوح موضوع كصاب سنة تصحيح الموازين وحلقوا قيمين يبلشدو أركتدا إن الله شكل هذا يسيد النبي بدلي عليه الصلاة والسلام كصاب سن محاقف كبني آدم كلقوا قيمية ما مظاهر الخارجية موقال كسره وحكم موقضة مسوح كله ميزانك الرجل ماذا محوي دوني دا إنه ما أنت تشوفنا دتكم ماتيرياليست بنقضي سيدا أوجد مظاهر تآد وجوين قروح دا اسقرحنتا جمالك يوحي لمدا هل كو جمالك كتشوجا مثلا شريعة واحد شري صحابي اللي هذا زاهر بن الحرام من ريرمية يبوها وأشجعية قبيلة غطفان لا يرى كمدا وعن بادية مركو كيماد النبي عليه الصلاة والسلام وحيد هذا مركو يماده هدي يقول أما طرف وشيء شري طرف هذا وإحنا بقى فرح قلية أو كور رمه هديدنا وكان شري النبي عليه الصلاة والسلام وبادية وكانه وحانو النبي عليه الصلاة والسلام marka uu ninkaasi baadiya ka yimaade magaalada yimaada hadhow markuu aan babaxayo nabigu alayhi salaatu wasalaam uu aan babixin jiray wixii magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray marka sawgeedu nabigu wuxuu lahaa inna zaahiran baadiyatuna wa nahnu haadiruun zaahir waa reer miyiga iyaga annaguna magaalo joogiisii baanu nahay yani isna waa ninka baadiya noo jooga dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyada ay keenaan subag iyo caano iyo xoolo iyo wixii la mid ah hadhow markay magaalada ka baxayaanna dhar iyo kaba iyo wixii la mid ah in la siiyo maalma ka miduu yimi zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxa la yiraahdaa nin fool xun buu ahaa dabeetana magaaladu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanayo joogo wax gadaya iibinaya ayuu nabigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga wayo saaw qabtay ma arka zaahir cidan dhabarka ka timee qabatay man hada arsilni buu yidhi war waa kuma isii daa buu leeyahy kadibna markuu jaleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu isku nabay nebigu markaa intuu saaw qabtay buu wuxuu leeyahay وريا يجي يبسنا يبو النبي عليه عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد بنبي وردون كان يجي قضانا يبو النبي عليه الصلاة والسلام سأقول الله كفتمية أدون كان يجي قضانا إياه زاهر بامرك هذا يوحل يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا إلهي من كل دارت إلهي رسولك سيو هدادي قدبو يلي كاسدك يعني وحويان waan kugu fadhiisanaya maxaa tiraadaan tijaarada markay ka socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan mayso buu leeyahay ninkayga zaahira cid ka gadan mayso ilaahay rasuulkiisiyo waa igu baaraysaa waa igu fadhiisanaysaa ma layga ka gadanaya buu leeyahay nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lakin cinda allahi lasta bikaasid ama anta cinda allahi qaal حديث الشمائل المحمدية بكوية الله وأنا حديث صحيح صحيح علماء الشيخ والنبي كويد عليه الصلاة والسلام إلهي أكتي سميد باريا يا أمامد أن قد ما ينك ما تهدوا نبي عليه الصلاة والسلام داي بني آدم كم مقال كاغوار كان قد ما ينين لست بكاسد عند الله بنبي عليه الصلاة والسلام إذن قرحضه يا جمالك يا مقال كان صار ألا أكتيس وحا قيمها كل ماها
saynu u kala qurux badannahay ilaahay uguma kala dhowin saynu u kala cadnahay uguma kala dhowin ilaahay agtiisa wax kala qiimo ka leh sida ogeed baa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay wuxuu nabigu leeyahay rubba ashcaha madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi laa abara wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam rubba litaqliil aw litakhiir rubba ashcaha la arkee mid basaasaysan timihiisa iyo wixiisu aanay feedhnayn ama shanlaysnayn oo basaasaysan oo madfuucin bilabwaab buu nabigu yidhi albaabada aan laga furin yacni waa miskiin ama waa kan la yidhaahdo aan ahayn dadka loo hashhashleeye albaabka loo furo aan ahayn laakiin haddana nebi moxamed muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam low aqsama cala allahi la abara hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wuu u rumaynaya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa sidii uu u dhaartay baa ilaahay u rumaynaya yani nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa idinku wax ku qiimaynaysaan ee dadka ku qadarinaysaan inaanu ahayn alle agtiisa wax lagu qadarinaya si awgeed midaydan idinku albaabka ka furaynin oo muuqaalkiisa sare aanu ahayn muuqaal dadku ay soo dhoweeyaan ayaa haddana ilaahay agtiisa wuxuu ka gaadhsiisaya maqaamka ah hadduu alle ku dhaarto in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaartiisa uu rumaynayo yani waxaan leenahay mujtamacii muslimka ahaa markii uu ku dhacay cultural revolution waxay wax ku qiimaynayeen siday wax u arkayeen iyo maadada iyo adduunku qiimuhu la lahaa markuu isbedelay ay noqdeen wax kale waxa bini aadamka lagu qiimeeyaa lagu kala horumariyaa ee dadku ku baratamayaan markaas bay sameeyeen xadaara aan dunida soo marin xadaara aan dad kala sarreeya lahayn oo aan isxaqiraynin oo aanu quruxda iyo midabka sare qiimo ka joogin si awgeed isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilkaasi xoojinaya xadiidka muslima kale waa ka ku tilmaamaya ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum ilaahay subxaanahu wa tacaala ma eego muuqaalkiinna sida u egtiin ama xooliinna ama waxaa haysataan walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay wuxuu eegaa quluubtiinna waxa ku jira ee iimaana ee alla ka cabsiya ee taqwo ah ee akhlaaq fiicniya waxa qalbiga idinkaga jira ee rumaysantiin iyo waxa idinka soo fulaya ee acmaala waxa idinka soo fulaya camala nooca uu yahay iyo waxa quluubtiinna ku jira kaas baa rabbi qiimeeyaa buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam walidalik maadaama aanay madaahirtu qiimo la lahayn المعرور بن سويد تابعي اللي ورنشري ورقي معمران تكمد هايا بقولي لا تجرم لها سجاري هذا علماء تاريخ يا وحيد وحن سفر وقصة مر أبي ذر سحابي اللي ورنشري وتولي الربض الله يهدى شوقه وحن صامر يقول يا أبو ذر حلة اسكتشوك حدان قفكي وشقين يينو سنة اسكتشوك لما ده حدانيه riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan isku joogii buu qaybiyo midna isagu siiyey midna isaga kanbaa xidhay waa abidar iyo qofkii u shaqaynaya shaqaalihiisa ahaa markaasaa la weydiiyo la yidhi waa sidee adiga iyo dee shaqaalahaagii soo idinkan isku waxa xidhan waxaa la eegayay dee isna waa saxaabadii waaweyneed ka mid ah iyo nin miskiina u shaqaynaya inaanay isku muuqaal noqonin bay iyagu eegayeen أبي ذر وحو كيري أرن كان وحن السماء بيقول وقتي النبي كان نن اسمع نوعا عيتن مركزا وحن كو عيبي يبيقول هو يدي إنه هو يمدوية وحبو كيري تبتنا النبي قال وحو يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أعيرته بأمه أبي ذر ومهوية وحكو عايس أبو لي إنك امرؤ فيك جاهلية وحتى هيقف ولي دقن كي دين تكهري وحكا هره إنك استاذ مسلم طيب المسلمات هاي لكن وحنا بقول عليه الصلاة والسلام رقم دي جاهلية ده هره ولي كماد وضم من رواسبتي بربك وحدا يبون بقول المامية
warwaa walaaladii buu nebigu yidhi ilaahay gacantiina soo geliyey faman kaana akhuuhu taxta yadih waa ninka walaalkii oo muslim uu shaqaalo u noqdo falyuطcimhu mima yaأkul buu nebigu yidhi war waxaad cunaysa wax ka sii waliyulbisu mima yalbas waxaad xidhanaysana wax uga xidh walaa tukallifuuhum maa yaglibuhum shaqo ka xoog badanna ha u dirin haddaase u dirtaan caawiyoo la qabta buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska lafdigan akhriyay waa bukhaari laakiin bukhaari iyo muslimba waa xadiis ku yaalla idan axaadiiska aynu tilmaamnay waxay tilmaamayaan miisaanku inaanu ahayn muuqaalka iyo madaahirta sare sidaad u qurux badantay ama u dheertay ama u caddahay inaanu ahayn miisaanka sharciga ahi inaanu ahayn waxa aad xidhan tahay iyo siday u dhalaal badan yihiin inaanu ahayn waxa cinda allahi qiimaha ka jooga miisaanka sharciga ahaa ee uu nebigu tilmaamaya waxa weeyaan waxa aad haysateen maal iyo mataaca wax laguma qiimeeyo dabaqyaad degantay guri ballaadhan oo hegtarra ku fadhiyaad joogtaa waxa wax laguma qiimeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam qiimo kaloo tilmaamaya valueskan waxaynu u tilmaamaynaa waxa weeyaan waxa kan aanu nebigu radinaya waa waxa mabda'a gaalku wax ku qiimeeyo gaaladu siday u kala jeeb roontay bay u kala sarraysaa sida loo kala muuqaal qurux badan yahay baa la isu kala horumariyaa waa maadiyiin laakiin diintu taa maaha sidaa ogeed waxaa jirta qiso caana saxaabi baa jiray isna raggaa aan quruxda badnayn ka mid ahaa waxna haysanin marka waa nin aan quruxna badnayn meel adduunyana lahayn markaasuu nebigu weydiiyey julaybiib baa la yidhaha war julaybiibow maxaad u guursan weyday oo yaa ii guurinaya buu yidhi aniga maal la melihi yacni baa ka muuqada een qurux laygu raacana igama muuqato gacantaydana wax kuma jiraan yaa markaa gabadhii guurinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu baxay qolo ansaara buu u tegey ansaartii nimankii ahaa markuu u tegay wuxuu ku yidhi yaa fulaan zawijni ibnatak waar hebelow gabadhaada isi guuri saxaabadu inta badan way jeclaayeen xididnimada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay nebi maxamed xidhiidh la yeeshaan walidalik baa la yidhahdaa ansaari hadday nin ansaarta ka mida gabadhi u kacdo wuxuu la hamiyi jiray sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu guursan lahaa ninkanna waxaaba u yimi nebigii oo leh inantaada isiiyoo ii guuri dabeetana nicima wa nucma caynin buu yidhi yacni waa erayo tilmaamaya si uu ugu faraxsan yahay waa dee khayr uu bushaaraysanayo waa wax idinku doogsataa buu leeyahy nebi maxamed oo gabadh naga soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigun lafahayga uma doonayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhan ku weydiisanayo anigu ma aha qofka guursanaya qaala faliman buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadda ayaad u doonaysaa ergeyga ka tay qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baan erga u ahay marka ninkii wixii uu moodayey waxaan ahayn baa soo baxay markii hore go-aanka keligii baa iska qaatay markan wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo balaan islaantii la tashado arrinku hadduu julaybiib yahay aan islaantii ku noqdo xaaskii aan u tago hooyadeedaan wax weydiiya buu yidhi wuxuu u tegey islaantii inanta dhashay markaasu wuxuu yidhi nebi maxamed baa gabadh inaga soo doonay calayhi salaatu wasalaam iyana sidii oo kaley tidhi nicima wa nucma caynin waa wax ili ku doogsato waa badhaadhe bay tidhi haddii nebi maxamed ba inoo yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi lafihiisa isagu u dooni maayo qaalat faliman yuriiduha oo haddaa yuu u rabaa bay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha yuu u doonaya qaala lijulaybiibin julaybiib buu u rabaaba ayuu ku yidhi qaalat xalqaa lijulaybiibin xalqan haddii la yidhaahda bay yidhaahdeen waa cuna xanuun
حلقة هدي اللي يراهدنا ما يراهدنا بدون تنوين وحيرت وأرى يقول لك ما هالك السومالي دو بقى يراهدنا ما بقى يا ما وحلم ده يعني وحيان رجين يسوي حانا حين أياكو صباحي سيد مودي سيسارة ما صباح ضي لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا إلهي ما كدرت جليبيبا نقول نطير الصين ما يبي سلانتي تري هذا مرة ده سلانتي كهرتمي وقعي مركو يصير حق النبي قبا عليه الصلاة والسلام إن أنت وي مغليسا ورك الدح صعدا بهديه يدين أي حاجة دمك على هذا الشيء وحكوت لي وحندي ويديو يا إيجا كين صدوني مركز ليدي رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام سيتري أتردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره ومن النبي محمد بهذا الكوع لنسان مركه أنت النبي محمد يدين يمو يدي قبر دايسية مياه هدنا النبي جي علي نسان بي كتري أنيقا النبي جي يوريشي بيتري واي النبي محمد مرنبا أنيقا يضيع مايو إيه هديدنا ورك النبي عليه الصلاة والسلام هذا يا سلانتي إن أنت مسألة دي وكفر فرطة دبا تنوى أقبلين نبي قوي ما وضيق يوحو كويري شأنك بها فزوجها جليبيبا إلهي رسولك سيو إن أنت واكو سيني يعني جليبيبي عدة دوني سمركا سيو قوري نبي عليه الصلاة والسلام روايات كحديث قاركود وحيشيقي أنه دعائي على كل حال والله دقال قال جليبيب قبردي والله دسي ولا سي دبتنا غزوات النبي قال عليه الصلاة والسلام غزوة كم يدبو قال دقال كمركي لقى صار نقضي أيو نبي حلي تفقدون من أحد يا إنا قمغان يا لواي مركاسا كل بان الله شيقا هبل لما هيو هبل والد لي هبل لما هيو هبل والد لي دتكي سيدو النبي قولها تفقدون من أحد عد ما إذا كان مقنت هاي أيام مركي دم الله يدي ماي عد ما مقرأ مركز النبي يقول هذا ما أنا قاعد بايقا مقن هو يا مقن إلهي رسولك سبحانه ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى ورنقول إنك جليبيبا هذا الله بلدتك الذي لك صائغا والله بعد قوبي وحل هلي تضبط قالوا ميدو ميل يالي يسقيو دين عياله waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisa halkaasaan ugu tagnay 7 maydo oo gaaladiina waa yaalin isna wuu yaala aqtala sab'atan thumma qatalu hada minni wa ana minhu nabu ku alaali ma tadabu dilay markaasay dileen kaasi waa iga tirsayaana waan ka tirsanay buu nabigu leeyahay salaatu wasalaam hada minni wa ana minhu riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu 3 jeer ku celcelinayay nabigu alayhi salaatu wasalaam dabeetana waa la soo qaaday nabigu gacmihiisu u dhigay isaga hayay intii xabaasha laga qodayay oo dhan nabiga kaleey salaatu wasalaam gacantiisu barkana markii xabaashii loo dhameeyay baa la xabaalay waxaadista loo dalishaday shahiidkeena la maydhin Julaybiib waa nin faramaran buu ahaa niman qurux badnayn buu ahaa saxaabi ansaari ahaa laakiin wuxuu nabigu ku qiimeynaya maaha madaahirta maaha sidoo ekaa رجل قصير دميم بيلين لكن قصرك هي الدميم لماذا نبي وحكومة قيمينين كما قيمينين هنتمحو هيستي يوحو لي هذا مني وانا منه كان يانو يقتر سيهي ومن جماعتي أنا قلنا كوحدي سام كتشراب النبي عليه الصلاة والسلام وحيت المامس موازينتي ماشي اللي هي ميزانة هنا هين إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكو قيمينيه إنه برا الصحابة دتن بلشاد فاليوس كدين لبدلوه رقم هذه جاهلية اللي قال يمي المقالة هي وحدتكو هايستان هي سيدا اللو اجي وحكو قيمينين أنا مسلم كو وحكو قيمينين وحدتك اللو قيمي ما كرسي هذا هي السيادة هي منصبك هي جاهة إنه مدحويني وزيري هي كان هي مكاسبة النبي عليه الصلاة والسلام ومال فرديا من صامرة مركزون نم فردي إلا فردي ما رأيك في هذا نك هالكامرية
حكولي رواية قاركودنا ما تقولون في هذا بيري نكا محا أوران لهيدين وحيدادين ورجل من أشراف الناس وادتك وايل كيسي نكا مدا وانينو odayadii reerka ka mida intaa kumay daynina ammaan bay bilaabeen hada wallahi xariyun bay yidhaaheen in khataba an yunkax ilaahay rasuulkiisiiyow kaasi waa nin dee ragga labeentiisii sare ka mido waa nin hadduu gabadhku weydiisto loo guuriyo oo hadduu erga kuugu yimaado ergadiisa la aqbalo oo hadduu warkuu sheegayo warkiisa la dhegaysto bay leeyihin waa waayeelka ayuu ka mid yahay uu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam cabaar markii la joogaa mid kale soo maray markaasuu yidhi maa ra'yuka fi hada kanna muxuu idin leeyahay aw maa taquuluuna fi hada waxay dhahaan kani waa foqorada muslimiintu ku jira ninkan meesha maray waa iska masaakiinta muslimiintu ka mid yahay dee nin hadduu gabadh ku weydiisto gabadh la siinayana ma aha nin erga hadduu kuugu yimaado ergadiisa la aqbalayana ma aha nin hadduu warramo warkiisa la dhegaystana ma aha bay leeyihin yacni mujtamaca agtiisa wasni kuma laha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu barayaa saxaabadan miisaanku inaanu muuqaaladan ahayn wuxuu ku yidhi markaa hada khayrun min mil'i اlardi mili hada kani dhulka muggiyo kii horaa buu ka khayr badan yahay bal miisaanku nebigu saaray arag waa hal qof iyo qof laysuma qiimaynayo kan hore dhulka muggiyo kaa soo maydhana midka maa ka khayr badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkaan idinka aan agtiinna waxba kama ahayn ee aa leedihiin waa fuqarada muslimiintu ka mid yahay cinda allaahi kaas baa dhulka muggiyo kana ka khayr badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan wuxuu xadiidku tilmaamayaa mawaasiintan aynu haysanaa inaanay wax saxa ahayn dhallinyarada dambe waxay dhahdaan quwada iyo xoogga iyo waa nin six backle oo muruqyadu dhisan yihiin oo kanabay wax ku qiimeeyaan waa nin feedha buuran feedha buurnidu miyay tahay fi shariica miisaanka wax lagu qiimeeyo ilaahay qolo munaafiqiinuu tilmaamo wuxuu yidhi waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilahay yidhi waana munaafiqiin haddaad aragto feedha buurnidooda waad la yaabay buu ayuu alle qur-aanka ku tilmaamaya waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim hadday hadlaanna fasaaxadooda iyo warkooda waa dhegaysan laakiin ilaahay muxuu ku tilmaamayaa kaannahum khushubun musanada baa la yidhi yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum qiimo darridoodaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waana ka nebigu tilmaamaya qiyaamaha nin buuran baa la keenayaa buu nebigu yidhi alrajul alcadiim الsamiin ayaa yowma alqiyaama la keenaa falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda buu nebigu leeyahy ilaahay agtiisa garab kaneecamka lama miisaan noqda baa la leeyahy ninkii xoogga weynaaye aakhiro la soo taagay kaneeco garabkeed aakhiro lama aha haddaad rabtaan akhriya buu yidhi falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna waxaa la tilmaamaa cabdillaahi bnu mascuud saxaabigii la odhan jiray awciyat alcilmiga ka mid ahaa saxaabada raggii u cilmi badnaa ka mid ahaa waxaaba yidhaha nin gaaban oo aada u dhuuban oo mijo yaryar dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa caday u dirtay geed buu fuulay wuu is yidhi caday nebiga uga soo go geedka markuu saaraa ayaa dhudhumadiisii muuqdeen dhudhumo aada u dhuuban ayuu lahaa markuu geedka fuulay ee dhudhunkiisa ay arkeen saxaabadii ayay ku qosleen ninkani siduu mijo yaryar yahay markii la arkay ayay qosleen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi maa tadxakuun maxaa ku qoslaysaan larijlu cabdallah ahqalu fi lmiisaani min uxud buu nebigu ku yidhi adinkaa yare cabdilaahi arkaysaan aakhiro miisaanka buurta uxud waa ka culustahay uu ka culus yahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam buurta uxud ee iska dhan miisaanka aakhira waxaa kaga culus adinka idinku ku qoslaysaan ayuha alaxiba
tolka iyo qabiilka iyo farabadnida iyo laandheeranimada iyo xasabka iyo nasabku miyaa kuwa wax lagu qiimeeyo nebi maxamed ma cid baa ka nasab fiicnayd calayhi salaatu wasalaam waa adeerkii ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya dii nasab wax lagu noqonayo tabbat yadaa abi lahabin watab maa ghanaa canhu maaluhu wamaa kasab baa ilaahay yidhi waxaa hoogtay gacmaha abilahab baa hoogay baa ilaahay tilmaamay abilahab waa nin reer ka dhashay quraysha haashimiya kana laakiin mawaasiinta sharcigu kaamay noqon marka diinta la waayo halka islaamku uu kor yeelay kuwa ama addoom ahaa ama masaakiin ahaa salmaan iyo bilaal iyo suhayb iyo ragga kan ayuha alaxiba waxaasoo nusuus oo axaadiista waxaan usoo tilmaamnay oo ka wada warramaya muuqaalada bini aadamka ama ha noqdo nasab ama ha noqdo maal ama ha noqdo qurux ama ha noqdo feedho buurniyo jasad iyo waxaasi oo dhan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa miisaanka dhabta ee la rabo bulshadu inay wax ku qiimaysa inaanu kuwa ahayn yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إلهي وحلي وردضوا لبي يددك قرآن كوضع أبوري عد ميل قارة كتبي ما جرته أبتركي إنه ميل قلوب وذا قليا غير نبي آدم أبتركي إنه مركو صعده meel qurun buu wada tegayaa baa la yidhi waxaan se idinka yeelay baa ilaahay leeyahy shucuub iyo qabaa'il kala nooca iyo qabaa'il kala jaada maxaa la idinka yeelay litacaarafu inay isku garataan haddaynu nooc qurho isu eeg noqon lahayn dee ismabayna kala garaneen laakiin in layna kala wada gediyey oo mid dheer iyo mid gaaban mid madow iyo mid cad mid inaynu kala nooc noqonnay waxaan idinka dhigay baa ilaahay leeyahay litacaaruf inay ku kala sarraysaan ama isku maagtaan ama kan idinkama dhigine waxaan sidaa idinka dhigay baa ilaahay leeyahay litacaarafu inay isku garataan ama hadday tahay sharaf iyo nasab iyo yaa koreeya ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa idinku karaamo badan idinku sharaf badan idinku mudan idinku qiimo fiican alle agtii ciddii alla idinku dhowrsanaan badan atqaakum min alwiqaaya kuwa alle ka dhowrsada cadaabkiisa ka dhowrsada wuxuu reebay ka dhowrsada aayadda ilaahay muxuu ku gebagabeeyey ina allaha caliimun khabiir marka miisaankan laydin sheegaya maaha miisaan aan cilmi ku salaysanayn ilaahay wuxuu leeyahy war ilaahay waa ku cilmi badan oo khibrad badan يعني قضايات كان ليدين شيغيا عن علم وخبرة بيكو صابحين ووحكو صلايسان أقون يمحي يخبركو صلايسان با إلهي تلماما يا سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة هدان موازين تأنو إسبدالين إسلام نمدا إنو صار نقون ميسو سيدا إنو دوني دا وارغنو سيدا إنو مالكا وارغنو سيدا إنو قروح دا وارغنو sidaynu muuqaalada bini aadamka u aragno sidaynu hantida u aragno mafaahiimtaasoo dhamme haddaanay isbedelin oo aanu sal u noqonin mafhuumka sharciga ahi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maka dib ugu soo noqday qabsaday quraysho iyadu isbidaysay oo dadka iska korraysiinaysay oo xataa intay yidhaahdaan waa xajaynaa oo diintii nebi ibraahim xajkii la samayn jiraanu samaynaynaa meel dhexe iyagu ka soo noqon jiray oo odhan jiray dadka aan carabta ahayn dadka aan quraysh ahayn baa carafiya meelaha tagee annagu xaramka kama baxno oo dadka kale u sheegan jiray dee idinku maryihiinnu waa maryo lagu soo dambaabaya ama mara nin qurayshi leeyahay ammaanayso ama iibso laakiin kuwiinna ma ku ansaxaysa inay ku soo xajtaan dadka saa isaga weynaynayay oo isu arkaya inay manzilo dadka kale ka koraysa joogaan ayuu nabigu maalintuu qabsaday khudbad u jeediyey wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina allaha qad adhaba cankum cubiyata aljaahiliya
حبية أو عبية لبدا والآخرية واردد أبو نبي عليه الصلاة والسلام وار إلهي سبحانه وتعالى وإذن كان تكسيي دقن حمدي جاهلية ده حبية يعني الكبر والفخر سلويني دي فانفانكي جاهلية الدين لا أنت هر لهيد إيا وتعاظمها بآبائها يا آباء سقفانكي إلهي وإذن كحي maxaa markaa dadka miisaan u noqonaya fannaasu rajulaan buu nabigu yidhi war dadku waa laba waa laba mid saddexaad ma jiro rajulun barun taqiyun kariimun cala allah qof samafala ah oo alle ka cabsanaya oo ilaahay agtiisa sharaf ku leh kariimun cala allah iyo wa faajirun shaqiyun hayinun cala allah iyo mid faajira oo kadeed ma ah shaqiya diin lawa kaasoo ilaahay agtiisa xaqiir ku ah wax liita ah dadku waa labada uu nabigu yiri ama waxa kale isku soo baarbaaraysaan wannaasu banu aadam wa khalaqa allahu aadama min turab waxan kale isku kala soocaysaan buu nabigu leeyahay wardadoo dham ilmo aadam un baati halka doonta ka soo galay aadam un baatigi abiyo hooyo qura idin dhalay aadamna ciidun baa laga abuuray عد نوع قارة كسم يسني ما تشربوا النبي التلمامي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة شرع عدو مركا وحينات التلمامي سا بني آدم كم حين كوقي مينينا سدو ينوك للدوية هي إلهي مركو رقن نمد القرآن كوت المامي ذكر نمد يا رقن نمد وكال الله أنا ضلبتها أيوة مسألة قال يا مسلم بدي الله بيد علي لكن رجل ماذا الرسم قال القرآن هو شيء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال كإلهي وحكوا الشيء إن يجين قوة كان وقوة صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلهي بلن كيلقى لين كرون شيء مركز لا إله إلا الله محمد رسول الله تلاهده عليه الصلاة والسلام بلن ما تقش إنه الله ربي جاي هي كل جاد عابد يسوع طريقة مريسان إنه كي نبي محمد نقول عليه الصلاة والسلام بلن كعباد قش إذا واحد وحقوقي ما ينسوا يصاد نرش أو أركيسه يدونك قيمه قليا لنا يو وحرد من إن لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبادان إلهي وحلي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رجي بلن كاسفوا لي إن يجوا وضضا هيكو جريودين إن والسجيان وشت كاسي ولي حيان أيها الأحبة تتك إيمان يعمل صالح أكلك الرئيسية إلهي وكل الدوية دلشو قروح حوله منصب ما هو إلهي لو كلا دوي غير هبل بان كذا شيء إلهي وقام دواني سيد وقروح بدنا هنا إلهي اكتيس وحبك معها مال بان هيستا وحبك معها مناصب الدون بان هيستانا وحبك معها وحال لا اكتيس وحكاءه الإيمان والعمل الصالح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلهي رقبوا المامية ما شاء الله لنا إلهي واشاقد والرق مساجد لقاها لبا إلهي كنت المامية إلهي كحصة مساجد لقاها له رقا صفاته وحي تهيبا إلهي ليه باع مشتركة إيه حولها إيه وحا شقدودو إلهي حسكيسة كما مشغوليان إيه صلاة أوغستيد إيه زكاة بحنتين يعني جماعات كمر ريبان حول الله شقين إياه وايو مالين بي كعب سنيان قلوبتا إياه إندو بي قلقل ميان بار ربي ليه سبحانه وتعالى
إذن صفة رغنمة ربي وكت المام يواطا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ورقان بيع أي ذكر تجارة يحوكس يحوله كمشغول عبادات كالله بل علماء الغرباء وحيد هذا قرآنكم مركا وذكر يوحي لنوعك والرمية ففروا إلى الله فاسعوا إلى ذكر الله سابقوا إلى مغفرة أرد يفردش يترتن يبرتن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيها الله الشيخة أدونك مركا لقا والرمية فامشوا في مناكبها والله الشيخة بين هذا أدونك مشي بالله الشيخة حوالها مركا دون إنسان قولك إسكا الصعدة بالله أما مركا عبادة هي حقا طهي ودقدق هي أرد هي ديرين بالله الشيخة يعني اجتهاد كاغا بدنين وحقا نقضه يا ربي نوت المامية حي إلهي نوت المامية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يأيدن مشغولين بالا إذا حول إيا عرور إيا كني إلهي الذكر سيدا كمشغولين أيها الأحبة warkoo kooban waxaan leenahay rijaasha quraanku uu sheegay waxa weeyaan mughriyatul hayaa dadka ay cibaadada ka kaxaynin binaadamka waxba jira dhaldhalaal tira badan aynu habeenka hore aayaadkeenu kaga waramayna kaga waranay oo binaadamka mashquuliya amaama mughriyatul hayaa tijaarada bay'da wa guurda wax la noocade waxa soo dhami kama mashquuliyaan ilaahi dhikrigi iyo salaadaha iyo zakada bixisteeda iyo diinta ku dhaqankeeda kama mashquuliya Abdullah ibn Mas'ud baa wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri istahyu min Allah haqq al-haya saxaabada isagoo la hadlaya war ilaahi ka xishoodka alle xaq uu leeyahay markaas waxaan ku nidhi qul ya rasuul Allah inna nastahi walhamdulillah wa xishoodna bay yiraahdeen إلهي بانا مهضله وحشونا إلهي بانا مهضله قال ليس ذاك نبي وحولي حشاد كان كور رميا كان هيدنكو كودان ماها ايوام حي حشاد كان كور رميا وحويا من نبي قولي الاستحياء من الله حق الحياة وحيهي أن تحفظ الرأس وما وعى ماذا حي وحو كوب صده وحكوب صدا دوا عندها وسنك ودجها وأفكا وعربك وحنود الماذا حكوب صدا انت إناد إلى لسه والبطن وما حوى على شيء وحي كوب صدا إناد إلى لسه ولتذكر الموت والبلا جيري يدمات كإناد حصوصة بالي مدى واحد سكدل دالا لسبع عيدنا كوعوني دون طول واحد أدون شقيسة دين قد كان يرلقا غردي دون كادو قاوان باتي ومرا يرلقو قد دوبا مركات كتاكي سنة دارينا كو راعي ميسي مرا كلالو قصي دوبا ياو مركات تمينا هادو قاوان باتي بي دابت أنا مرا لقو قد دوبا مركات سيبا حيسانا مرا يرو كالون بالقو قد دوبا يقد بالقو غردي وحبا كان راعي مايا لكن محاكو راعي كوا كان ساوغيد بالنبي وحولي حشوتك الله لقى حشوطه وين أدوحي قال لك كسيه إلى لسه جاري حسوستي إنك جاري أوجي حسوست إذا يكون وينتهي أدونك يوم ملذات كيسو مسي مشغولية ومن أراد الآخرة ترك الزينة الدنيا بالنبي قولي إنك آخرة دونية أدونك دلال كيسس كما مشغولية بالنبي قولي عليه الصلاة والسلام من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة حديث إمام أحمد يترمدي غير كتبه ووريين إمام النووي نوى إسناد كسوى حسن بولي شيخ الألباني نوى حسن لغيره بولي إذا النبي عليه الصلاة والسلام حوت المامية وحل الربا وحي هي موازين تأين الربنا هي وحي إن الربنا إن الوحقوق يمينه
قصة سؤال أرورنا الحاكم في مستدركه بسند حسن هي وحلا إلى هذا مقالة مدينة دار كم إذا يا عمر فرديا جماعة من الصحابة نصوف فريستين مركز حكولي تمنوا بل خيال كينا وح تمنية متبوح ولانه وحن تمني لها دارتا مجد والذهب إنان هلو واندبتنا إلهي درتي وبحيه حول بضن ودارتا مجد والذهب إنتان هلو لكن أنا ما في عادة مرة بينان محي في سبيل الله وبحيه مركز هذا عمر كو عليه تمنوا متكلا وحولي وحين بسيبة دي دارتا مجد واللؤلؤ يزبرجت إيو جواهر الغالية يعني بريشيس ستونس حنقال يدارتنا أي كودا بوحده أي أنت بيني لها إلهي جدكي سووا بحيه فقال تمنوا مراسي واحد هذا انت وحكى لهم الشيقنو قرن مينو أدون انت أصنبانك قرن عمر بوحده أنا وحن سيت تمنين إياه هدأن هيري لهابولي الرق أبو عبيدة بن الجراح يا معاذ بن الجبل يا سالم مولى أبي حذيفة يا حذيفة ابن اليمان رقاس يوكله هدان هلي لها وأن إلهي كلمة دي سينان كوكور ياله أنو قرقارسان لها بولي يعني عمر روح الرباين الصحابة دولو تلمامو ماتيريال كوينانو هين قيمة كواحد لسه قالها السماية واحد سماية بني آدم سمال دم كواحد سلام ملا هدي وفقر جالس كوكان دري هدي حول الليل هدي حول الليل أنا وسكو مرة الله ينون حبيس ما بدلين ما ها ماتيريال كواحد لسه يسا حول الله يسا الله أبرسي كان معها أما روحوا تلمامين الرجال يهين وحوحان سماية حولها ركبة نقاو السماية وما دي ضد هشة لكن ضد كوالتي له هشة ضد قيمة له هشة رقوا تلماما يا أبو عبيدة بن الجراح ونكون أبو كنت تلمامين 10 المبشرين كمدياي أما أمين هذه الأمة ومضى تنقف وأما نبضرين وياهي وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرق ومعاذ بن جبل ونكون أبو كنت تلماما أعلم المسلمين بالحلال والحرام نندل يرابوها وحليناها قبل جيبا دوري سودا جربو كودنت هذانا سوى دوري توانشير نوو السلام دنا النبي قول حكوت الإمام عليه الصلاة والسلام إنه ياي أعلم مؤمنين تنك وقوا قوم بدن لما كي مسألة حلال يا حرام شوكتو النبي قول الإمام عليه الصلاة والسلام إذن رجال كوالة له أيها أهل نرشة وحوحك بدل أبو الإمام يا عمر والرجال ميزان كودو آنو هين موازين تندنويقا أما دادكو هدو وايا كوالتيقا أما فاليوسكا أما قيمها هدين لوايو وحصابح يكون نبي الله عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة وقال بقولون نفلة فولا لقواي قال قال هداد وطهدنا نفلة فلان وكتشرين الرجل الصالح قيمها لموازين رميساني وإكسير الحياة واحد شيء قاعد إكسير ليلة ضوحي لصار باي بركوبان وتربطان واسكا وحيوات تذكر رميسية كمتين يعني إكسير الحياة وحقه مؤمن ككوالتي قال له إذا وحكى بده شان الله شو أقوى ما أهمرك dadku siduu xoolo badan yahay ama xoolo yar yahay ma aha siduu qurux badan yahay ma aha siduu caynkay waa quality-ga dadka quality-gu hadduu lumo waa min calaamaat qiyaam as-saa'a nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam dadka waxa ku iman doona sanado khadaacaat sayati ala an-nas sanawatun khadaacaat sanado khiyaameed oo waa maxay ووقت النبي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يدونه بني آدم كوحي له قيمين شري ومحاكم ده النبي قلت المام يصدق فيها الكاذب كبنا لا أبال الرميسانية كبنا لا ونرون شيئين
dadka dad badan oo maanta hor socda markay khudbadaynayaan ama wax sheegayaan hadhow markaad aragto midhi kama runaha wixii uu akhrinayay wuxuu nabigu ku tilmaamaya markaa yusaddaqu fiiha alkaadib kii beenta sheegayay dadku waa rumaysanayaan wayukadabu fiiha asaadiq kuwii runta u sheegayana cidma dhegaysanayso waa beeninayaan waxau nabigu tilmaamay yu'tamanu fiiha alkhaa'in tuug baa wax loo dhiibanayaa waa la aaminaya manaasibtaa ka mida waxa la isku aaminayo soomaalida u fiirso waxaa laga yaabaa in reer waliba kays yidhahdaan waaba ugu tuugsay inay meesha geeyaan waayo raganimadu waa inuu wax soo boobo haddaad meesha geyso carruurta dhowr guri u soo dhisi waayo waxaa laga yaabaa in la yidhaha war waa nacaskaas tolna wax ma tarin isna wax ma taransan baa la leeyahy tolkana wax ma tarin isna wax ma taransan yani waa wax ma soo xadin ile mushaahar waa la garanaya intuu yahay waa dadka ma soo dhicin idan nabigu wuxuu tilmaamaya yu'tamanu fiiha alkhaa'in waxaa la aaminayaa kii khaayinka ah wayukhawanu fiiha alamiin qofkii aaminka ahna waxaa la odhanayaa war naf male kani takhwiin baa lagu samaynaya wayantiqu fiiha aruwaybida buu nabigu yidhi waxaa hadli doona ruwaybidada waa kelima carabiyo macnaheeda la garan karo laakiin saxaabadu waa yaabeen wama ruwaybida bay yidhaaheen ilaahay rasuulkiisa iyo ruwaybidadani waa kee wuxuu nabigu ku tilmaamay alrajulu taafih yatakalamu fii amri alcaama mid liita unbaad arkaysaa dadka hor socdo arrimaha ummadda ka warramaya ummadda arrinkeeda ka warramaya waa rajul taafiha buu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxaynu u baahanay inaynu isbeddel ku samaynaa ma aha dhaqaalo badan ma aha kan waxaynu isbeddel u baahanay inaynu ku samaynaa waa dadka waa mawaasiinta dadku wax ku qiimaynayaan waa quality-ga dadkeennu uu leeyahay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa wakhti ay ummadda muslimkii jabi doonto xadiidka macruufka ee thawbaan oo dadka kale ay isugu yeedhan doonaan sida la isugu yeedho xeedhada la cunayo casuumadaa la isugu yeedho oo nabiga la weydiiyey su-aala ma yaraan baa sida tani ma intaanu yaraanno ayaa markaa nala boobayaa miyaa may buu nebigu yidhi waa tiro badantii laakiin maxaa isbedelay valueskii baa lumay ghusaa'un ka ghusaa'i sayl baa tiin buu nebigu yidhi daad xoorta daadku sidoo kale aad soo baxaysaa daad xoorta waa waxaan wasni lahayn daad xoorta sooma taqaaniin xashiishkan daadka korkiisa socda xashiishkaasi dee shakli male foom uu leeyahay ma jirto laantii meesha soo martaaba oo badh bay la hadhaa biyuhu kolba dhankay u jeestaan buu ula jeestaa itijaahu u socdaa ma jiro yani waa waxaan qiimo lahayn wasni lahayn marka wuxuu yidhi ghusaa'un ka ghusaa'i sayl baa tiin daad xoorta daadku sida oo kalea tiin walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum cabsida gaaladu idinka qabtana waa laga saari doonaa oo nebigu cahdigiisii wuxuu tilmaamay waxyaabihii loogu gargaaray inay ka mid tahay nusirtu birucb shantii shay uu sheegay uu yidhi umankii hore may haysanaanaa laysiiyey masiiratu shahr bil in loo jiro dadka jooga inay ka cabsanayeen soo iminka dowladaha waaweyn dee iyagoo kumanku mayl inoo jiraa laga cabsadaa soo maaha maraykan xagguu degan yihin laakiin dee waxaad is leedahay dad maraykanka ka hor timaado mala balaayaa dhacaysa nebi maxamed wuxuu leeyahy bil in loo socdo ayaa dadku iga cabsanayeen amaa marka sida tani dhacday dadka qualitigiisu baaba'o cidiba idinka cabsan maysa buu nebigu leeyahy cabsidii ku jiri jirtay dadka gaaleed waa laga siibi doonaa oo maxaa beddelaya walaa yaqdafanna fii quluubikum alwahna idinkaa dacfi qalbiga idinka geli doonaaba iyagana cabsidu waa ka ba'aysaa idinkana liidashada idinku dhacaysa baa la leeyahy waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo wahnigan nagu dhacaya waa maxay dacfigan qalbiga naga gelaya ee nagu dhacaya waa maxay wuxuu nebigu ugu tilmaamay inay tahay xubu dunya wa karaahiyat lmowt adduunya jacayl baa idin wada qaadaya de nin waliba xooluu raadinaya geerina ma rabo nolol kalena ma raadcaynayo sharaf iyo qiimo kale iyo value kale uu wadaana ma jiree waa siduu xoola u helaa
xoolaseenu raadinayno bad ku dhimanay oo barri ka dhacnay oo dunidoo dhan soo marray oo meel walba gallay waxaasoo dhammina waa baris raadisuun waa xoola raadis ayuha alaxiba waxaan ku soo koobayaa waqtigii salaaday gaadhay waxaynu u baahanay waxa weeyaan valuega dadka inaynu bedelo waxaynu u baahanay qof waliba inuu isagu isbedelo diintu maaha information laydiin sheegayo macluumaad tiro badan oo qaadanaysa ee waxa weeyaan transformation la rabo naftiina inuu ku dhaco inaad isbedesho shalay saad dunida u arkaysay si ka gadisan inay kuugu muuqato hadduu isbedelkaasi yimaado camalkaaguna isbedelaya markaa maxaa qiimo kula leh maxaad u shaqaynaysaa maxaad raadinaysaa xaggee noloshaadoo dhan baa isbedelaysa ama nolosheennu hadday tan materialist ka noqoto ee guri ballaadhan iyo lacag tiro badan u raadinaysa iyo mansab iyo wasiirnimo hadday noloshu taa ku salaysan tahay waxba isbedeli maayaan waxaan liidasho ahayn laga sii qaadi maayo idan waxaynu u baahanay dad ee dhaqaale maaha dad baynu u baahanay dadkaa dhaqaala sameeya waxaynu u baahanay dad quality leh oo kuwa qur-aanku uu sheegaya ah kuwa nebi maxamed uu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam kuwa aynaan ku qiimaynin maxay haystaan iyo siday u eegyiin iyo mansabkay joogaan iyo qabiilkay ka dhasheen ee aan ku qiimaynayno ilaahay intay u jiraan subxaanahu wa tacaala xidhiidhkay rabbi la leeyihin intuu leegiyey nolosha siday u arkaan aakhiro siday u arkaan adduunka siday u arkaan kaas baynu u baahanay wasala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin